wax ka baro taariikhda boqorkii caadilka ahaa ee magaciisa la oran jiray Dulqarnayn. Dulqarnayn wuxuu ahaa boqor caadil ah oo boqortooyadiisu ay gaartay adduunka dhinac walba iyo taraf walba. wuxuu joogay xilligii Nabi Ibraahim calayhi salaam, wuxuu diinta ka qaatay Nabi Ibraahim calayhi salaam, wuxuuna Kacbada la tawaafay Nabi Ibraahim iyo Nabi Ismaaciil calayhi salaam. waxaa la yiraahdaa Dulqarnayn wuxuu noolaa oo adduunkan joogay oo xukumayay muddo 1600 oo sano ah. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kaga sheekeeyay quraankiisa 3 safar oo Dulqarnayn adduunkan uu ku maray. safarkiisa koowaad wuxuu ku tagay galbeedka u shisheeya meesha qorraxdu ay ku dhacdo. wuxuu ugu tagay dad qorraxda caabudaya oo mushrikiin ah. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay choice, wuxuu ku yiri waxa ku banaan in aad ciqaabtid oo aad cadaabtid ama in aad waanisid oo diinta aad ugu yeertid. Dulqarnayn wuxuu go'aansaday inuu dadka u naseexeeyo